kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudano waxa la soo gaaray amintii aan idin soo gudbin jirnay warbixin naga soo gaaray guud ahaan caalamka. waa maalinimo axada 4 bisha Oktoobar 2021 warka waxa si toos ah uga socotaan Bisla TV. waxaan idin la socodsiin doontaa anigoo ah Nasra Cumar balse aan ku hormaro qodobada aad warka ku maqli doontaan. Puntland ayaa dib u dejin ku meel gaar ah u sameysay boqolaal qoys oo ay Somaliland ka soo tarxiishay laasxaanood. madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo gaar ah ka dejisay magaalada Dhuusamareed. Ra'iisul Wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sii jeeda dalka Qatar. daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada aad warka ku maqli doontaan iminkii haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo halkan waa channelka Bisla TV oo aad kala socon doontaan warar sugan warbixino xasaasi ah iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaas oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada. daawadayaal aad baad u mahadsantiin asxaabteena ku xidhan channelka. sidoo kale waxaan ka codsanaa asxaabta nagu xidhan inay channelka noo saaraan like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter. ballanteenu markasta waa channelka Bisla TV. magaalada Dhuusamareed ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska gaarka ah ee Harmacad kuwaas oo laga qaaday magaalada Muqdisho. ciidamadan oo gaaraya ku dhawaad 200 ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan in gacanta maamulka Galmudug lagu soo celiyo degmada Guriceel oo Jimcihii la soo dhaafay la wareegeen ciidamada Al-Sunna wal Jameeca. wararka laga helay magaalada Dhuusamareed ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada la dejiyay qayb ka mid ah magaalada iyagoo ku biiray ciidamo dhawaan la geeyay halkaas. deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda guluf dagaal oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinaca ah iyo ciidamada taabacsan Al-Sunna wal Jameeca ee la wareegay Guriceel. hogaanka sare ee Al-Sunna wal Jameeca ayaa waxa ay sheegeen inaysan u soconin dagaal ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug balse ay la dagaalamayaan Al-Shabaab. ha yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ay sheegeen in Al-Sunna ay doonayaan inay burburiyaan maamulka Galmudug. madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay. wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha Booli ee magaalada Addis Ababa waxaa ku soo dhaweeyay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, wasiirka maaliyadda Itoobiya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda dalkaas. Farmaajo ayaa ka mid noqday madaxda lagu casuumay caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bishii Juun xisbigiisa ku guuleystay doorashadii dalkaas ka dhacday. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa uu kulan la yeelan doonaa madaxda kale ee ka qayb galaysa caleemasaarka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. socdaalka Farmaajo ee Addis Ababa ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo dal dibadda ah ugu ambabaxo tan iyo wixii ka dambeeyay 25 Abriil qalalaasii iyo iska horimaadyadii ka dhacay Muqdisho ee sababay inuu ka laabto muddo kororsiga 2 sano ahaa. nin kartoonista oo u dhashay dalka Sweden oo sanadkii 2007 sameeyay kartoon ugu gafay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee muslimiintuna ay si weyn uga cadhoodeen ayaa shalay ku halaagsamay shil gaari oo ka dhacay Sweden. Laris oo ah 75 jir ayaa ku dhex gubtay gaari booliis uu la socday kadib markii gaarigaasi uu ka baxay wadada uu ku dhacay gaari xamuul ah waxaana dab qabsaday gaarigii uu la socday ninkani. shilkan waxaa sidoo kale ku geeriyooday 2 sarkaal booliis oo ilaalo u ahaa ninkan kartoonka sameeyay halka uu shilka dhaawac ka soo gaaray darawalkii wadi gaariga xamuulka ahaa. kartoonistahan halaagsamay ayaa horey 2 mar uga badbaaday weerar muslimiin caraysan ay ku dil rabeen waxaana dowladda Sweden ninkan ay siisay ilaalo gaar ah oo ka ilaalisa weerarada uga imaan kara muslimiinta. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan u ambabaxaan magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar. sida ay wararku sheegayaan ra'iisul wasaare Rooble ayaa casuumad gaar ah ka helay madaxda dowladda Qatar waxaana la filayaa marka uu tago dalkaasi inuu kulamo la qaato madaxda dalkaasi.
xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaan weli faahfaahin ka soo bixin safarka Roble ku tagay dalka Qatar iyo ujeedkiisa, waxaana safarkan ku soo aadaya xilli uu khilaaf xooggan u dhexeeyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo. Dowladda Qatar ayaa xidhiidh aad u dhow la leh madaxweyne Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin. Lamana oga ujeedada xilligan dowladda Qatar u casuuntay ra'iisul wasaare Roble oo ay isku dhacsan yihiin madaxdii ay xidhiidhka dowla lahaayeen. Magaalada Milano ee dalka Talyaaniga waxaa ku burburtay diyaarad ay la socdeen 8 qof, waxaana diyaaraddu ku dul burburtay dhismo 2 dabaq ka kooban oo xafiisyo ahaa kuna yaalay xaafadda San Donato. Diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha Linate ee magaalada Milan, waxaana diyaaradan ku dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaadhayay ilaa 8 qof. Dadka diyaaradda ku dhintay waxaa ka mid ahaa Dan Petrescu oo 68 jir ahaa una dhashay dalka Romania, kana mid ahaa dadka ugu hantida badan dalkaasi. Waxaana sidoo kale shilka ku dhintay xaaska maalqabeenka iyo wiil 30 jir ahaa oo u dhalay iyo ilmo yar. Booliska magaalada Milano ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan waxa sababay shilkan, waxaanay booliisku sheegeen in dhismaha xafiisyada ee diyaaraddu ku burburtay aysan dad joogin xilliga uu shilku dhacayay. madaxweynaha Falastiin ayaa martigeliyay 2 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada Israa'iil kulan habeen hore dhacay, taasoo astaan cusub u ah in si tartiib loo wanaajinayo xiriirka labada dhinac. wasiirka caafimaadka Israa'iil iyo wasiirka iskaashiga gobolka ayaa ahaa kooxdii labaad oo ka tirsan golaha wasiirada oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas Axad tan iyo markii xukuumadda cusub ee Israa'iil ay xilka la wareegtay bishii Juun. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sidoo kale Cabbaas kula kulmay xaruntiisa Daanta Galbeed bishii Agoosto. xukuumadda cusub ee Israa'iil waxay ka kooban tahay 3 xisbi siyaasad ahaan oo kasoo kala jeeda qolyaha midigta fog ee diidan dowlad madax bannaan inay yeelato Falastiin, halka xisbiyada kalena ay taageeraan xal buuxa inay gaaraan Falastiin iyo Israa'iil. haatanna nasraan dib kugu celiyo. Algeria ayaa u yeedhay danjiraheedii Paris kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ay ku eedeysay hadal meel ka dhac ah oo ku saabsan xasuuqii uu ka geystay dalkaasi oo mustacmaradu ahaan jiray. Dowladda Algeria ayaa sidoo kale hawadeeda ka xidhay diyuuradaha dagaalka ee Faransiiska. Algeria ayaa sheegtay in Faransiisku sidoo kale ku hayo faragelin arrimaha gudaha ee dalkaasi. Puntland ayaa dib u dejin ku meel gaar ah ku samaysay 100 qoys. Puntland ayaa dib u dejin ku meel gaar ah u samaysay 100 qoys oo ay Soomaaliland ka soo tarxishay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qoysaskan oo badan carruur iyo haween ayaa intooda badan lagu soo dhaweeyay magaalada Galkacyo, halkaasoo loogu sameeyay daryeel caafimaad iyo quudin. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in ay 758 qof oo horodhac ay ku soo dhaweeyeen magaalada Galkacyo. Dadkan ayaa qaarkood sheegay in ay qoysaskooda iyo hantidoodii kaga soo tageen magaalada Laascaanood kadib markii ay si kedis ah looga soo tarxiilay magaalada Laascaanood. Puntland waxa ay si degdeg ah hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanadeeda ka dalbatay inay ka qayb qaataan sidii qoysaskan dib u dejin rasmi ah loogu sameyn lahaa. Dadka laga soo barakiciyay Laascaanood oo warbaahinta la hadlay ayaa ka dalbaday in loo ogolaado in hantidooda iyo qoysaskooda uga xiriiran Laascaanood ay kala soo baxaan. Waa tahay daawadayaal, intaas waxaa inoogu soo dhamaaday warbixin idinka haynay caalamka. Inta aynu ku kulmi doono warka xiga, waxaanu idin leenahay kulan dambe oo xiiso leh.